hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho ku xustay maalinka qaxootiga adduunka oo ku beegan 20 Juun maanta oo kale. hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa waxay qabatay tartan ku aadan maalinkani taas oo ay ka qayb galeen artistayaasha, gabayaasha iyo sidoo kale wariyaal, waxaana dadkani ay ku kala guuleysteen kaalimo kala duwan. muhiimadda xuskan ayaa waxa uu ahaa 1 milyan ee Soomaalida ee qaxootiga ee ku kala nool malaayiinka kale ee ku barakacay gudaha wadanka Soomaaliya. qaybaha ugu sarreeya ee tartankan ayaa waxa ku guuleystay shakhsi Soomaali ah taasoo dareenkiisu ku cabiray sida uu ugu qanacsan yahay ama ugu faraxsan yahay sida uu ugu guuleystay. abaalmarinadan ayaa dadka ku guuleystay waxa lagu kala magacaabaa Saciid Maxamuud Ciise, Xuseen Xasan Daahir, iyadoona ay xusid mudan tahay in tartankan ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo ku kala nool wadamada Yemen iyo sidoo kale wadamada kale ee qaxootiga ay ka dhaceen dagaalada. dalalka dariska leh Soomaaliya ayaa iyagu waxa ku nool qaxooti kala duwan kuwaas oo ka barakacay gudaha wadanka Soomaaliya, iyadoona ay xusid mudan tahay in wadanka Kenya ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo qaxooti ahaan ugu nool xeryaha Dadaab ee ku yaala gudaha wadankaasi Kenya. sidoo kale gudaha wadanka Soomaaliya ayaa waxa ku barakacay malaayiin Soomaali ah kuwaas oo iyagu ka cararay dagaalada ka dhacay gobolada wadanka Soomaaliya. Cabdirasaaq Miradho, Cable TV, Muqdisho.